maalin maalmaha ka mid ah taariikhdu markay tahay 12 bisha Oktoobar 2021 ayaa gobolka Fayoum la yiraahdo magaalada yar ee la yiraahdo magaceeda Damiya ayaa qof wuxuu soo wacay police stationka wuuna tagay markii dambe almuhiim qofkaasi nin rag wahay markuu police stationka tagay ayaa wuxuu yiri waxaan weysanahay hooyaday oo 85 jir ah ilaa ay xalay ayaana raadinayay tamam hooyaday last time waxaan ku ogaa inay joogto guriga walaashay kadib hooyaday guriga walaashay markay ka soo baxday CCTV-yadii laamiyada ku yaaleen markaan si daba raacnay ama aan si raad kurnay hooyaday waxay gashay gurigaas ayay kaameradii ugu dambeysay qabatay inay hooyaday gurigaas ay sii galayso laakiin hooyaday gurigaasi dib dambe uga meesha soo laabanin laami amniga ninkii bay soo raaceen waxayna yimaadeen meeshii uu ka arkay kaameradaha uu ka hadlayo laamiga amniga markay kaameradii ay fiiriyeen wax aniga qisada diyaarinayaba aanan filaynin baa kaameradahaas nooga soo bixi doona maanta waxaan joognaa wadanka Masar siiba gobolka la yiraahdo Fayoum tuulada yar ee magaceeda la dhaho Damiya soo kora diyaaradda waxaan ka tegaynaa halkaas iyo Masar let's go المادة 381 فقرتين من قانون الإجراءات الجنائية قررت المحكمة بإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق القضية بالنسبة للمتهمة الأولى كريمة جمعة عبد الباقي رشدان إلى فضيلة المفتي الديار المصرية لإبطاء رأيه الشرعي وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر يوليو 2022 نطق الحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكسونا قدونا أكسون ولا لذي قالية وأنا ولاشين هذانا جالك هذه داوني سوى جالكين هذه براتين هذانا أونلاين. داود هذا مركي ووريسين السوق وقتي صوره وقام فرنا سمرتين بينكم من كاجي واحد سبسكرايب نوصار هدي أدولي وجع شق سوين كعالم ككذا عميش دي جوبته هو سودك سبسكرايب صار كم بلايل كايسكيلا ونحوك عابنا إن أنا قتي داودها أو بهري مرور بفيديو عصب أنصور ديجو channelك وحي تالي تصالة مسبب رأي مسأربت إن أنا جيده هذه أما قصة كوسابسن قبت كومنتيجا إنه ولا وذاك ولي واجع هنا كومنتي ذي آخرية سو كومنتي يريب وما سنتين فيديو كان دوك عجب إيه هدوك عجبني لما قرب ما دام وقت وإيجا قلي وحان ضوية فيديو كان صدح دي إيو 15 دقيقة أيام مونين أما سي سجال سحبين أيام فيديو كان ضوية سو دريمي كرتا أوكي مادام وقتي بدني قال دوك عجب لما قربة لايك فر بدان صار فري مارو كل لايك تبع ستين سايدي سو شاقي intaan gelin qisada ka hor waxaan rabaa inaan shaashada idin soo saaro Facebook page-kayga Facebook page-kan ana iskale okay please linkigiisa qaybta commentiga ayaan pin ku qaban doonaa waa codsi daawada please waa codsi okay follow iisoo dheh Facebook page-kayga waana mahadsantihiin qisadeen haddaan guda galno saa idiin soo sheegay maanta waxaa joognaa wadankaasi Masar magaalada yar ee tuulada magaceeda la yiraahdo Damiya special قصة waxay ka dhacaysaa xaafad la yiraahdo Jabal magaaladaasi Damiya waxa ku nool hooyo magaceeda la yiraahdo Khadra Maxamuud Ahmed Khadra waxaan u maleyn jirnay Soomaalida la baxdo by the way all Khadros tan daawanayso ku salaamay okay hooyadani magaceeda waxa la yiraahdaa idin soo sheegay Khadra Maxamuud Ahmed hooyadan bayna qisadu ku socotaa by the way qisadani maalmahan weegan ayay viral tahay waxa jiro qisooyin mar hore dhacay laakiin hadda ay dadku barteen ama si ay ka hadlayaan oo la hadalhayo that's why darad ilaa iyo maantan arkay meel ay qisooyinkan ka soo diyaarsado way iga soo horbaxaysay soo fadula ay qabto waxaan why not la wadaaga saxaabtaada so hooyadani ayaa qisada ku socotaa saa idin soo sheegay Khadra Maxamuud Ahmed waa hooyada sawirkeeda u jeedin hooyadani waxay dhalatay markay taariikhdu ahayd 1937 so waa 85 jir ayay ahayd markii qisadani ay dhacaysay hooyadani waxay ka kooban tahay family-geedu 8 qof waa hooyada iyo aabaha iyo 6 caruur ah oo u dhashay ninkeeda 3 wiil iyo 3 hablood ayuu Ilaahay siiyay ma sha Allah hooyadani ninkeedu wuxuu dhintay 12 sano ka hor markii qisadu dhacaysay 12 sano ka hor ayuu dhintay hooyada ninkeeda
qisadii maadaamay dhacday 2021kii soo haddan hadday noolaan leed hooyadaasi 87 jir ayay sii ahaan leed xilligan say doontaba ahaatee saddexdeeda wiil iyo hal gabar ayaa muhiim noogu qisada nagula jira hooyadani wiilasheeda wiilka curad magaciisa waxaa la yidhahdaa maxamed wiilka ku xiga sayid wiilka saddexaad axmed saddexda habloodna mid kamid waxaa la yidhahdaa gabdhaheeda saamiya ayaa la yidhahdaa maasha allah laakiin saamiya iyo sayid keliya ayaa nagula jira qisadani saa idiin soo sheegay hooyada 12 sano ka hor ayuu aabaheed dhintay ilmihii marka hooyadani 6 caruur uu rabbi siiyey maalinba mid isaga tagay ilmaha yani caruurta badan waxyaabay ku fiican inay kamid tahay hooyadani maalin gabadheedii u tagay la soo joogay wiig haday rabto 10 beri la soo joogay haday rabto bil la soo joogay hadana wiilkan kale u tagay sidaasay hooyadan sameyn jirtay ilmaha ay dhashay hooyadani gabar kamida ayaa areada xaafada hooyadani deganeed la deganeed hooyadaas gabadhaas hooyada xaafada la deganeed magaceedu waxa la yiraahdaa saa idiin soo sheegay saamiya tamam by the way waxay raaxaysiin idin dhex gashtay dresskan aan xiranahay ee saan quruxda badan leh inta wuxuu ku leeyahay shiyeer ilaa iyo lugaha shiyeerka dressyadan dukaankayga ayaa ka helaysaan soo snapchat-kayga khamaarada dressyada agabka dumarka oo dhan kareemada wax dhan ana haayo soo snapchat-kayga waa idiin soo dhigi doonaa igu soo darsada daartina businesskayga support gareysid waa mahadsantiin okay hooyadani gabadheeda ayay marka xaafadeeda la degan oo magaceeda la yiraahdo saamiya hooyadani waxay ahayd hooyo inkastoo ay tahay hooyo waayeela laakiin waxaa jiro maamooyin ayagoo da ahaan yaro waaweyn leerabe haddana ay hooyooyin dad ishayada oo da-du ka muuqan hooyadan marka saanay ahayd hooyadan marka way shaqayn jirtay tamam waxay gadi jirtay caanaha gurigeeda ku gadi jirtay marka hooyadu caanaha iyo subaga iyo ukunta iyo waxay yiraahdeen carabuhu jubnad waxaad ii soo sheegteen jubnadaasi af Soomaali maxaa lagu dhahaa okay ma khaynaani burcadna ma ahan tamam soo jubnadan wax la dhaho af Soomaali ii soo sheegay jubnad la dhahana was fine soo hooyadu waxyaabahaasi ay maaragtay gurigeeda ay ku iibin jirtay dad badan ka iibsan jireen hooyadani hooyo yaro iska afgaaban xaafadaasi deganta waa xaafada ilmaheed oo dhan ay ku dhashay soo maaragtay waxay ahayd hooyo aanan cadow lahayn weligeed dad daris iyo ma ahayn dadka la dagaalay iska laalaaday qof walba colka la ah ma ahayn cadow ma lahayn dadka dhanna way iska jeclaayeen qof shaqaysatana dad way ahayd oo qof hadana waxay intaas u sii dheereed hooyadani waxay ahayd hooyo ku caan wanaaga okay oo dadka caawiso kii baahan wax siisa okay markay taariikhdu ahayd 12 October 2021 wiilkeeda sayid sawirkiisa waa arki doonteen wax yar cabaar kadib sayid ayaa xaaskiisa xaamile ahayd ayaa waxay dhashay 12kii xaaskiisa sayid waxay dhashay 12 October midnight markay saacadu ahayd 2 am morning ayay xaaskiisu dhashay waxayna u dhashay gabar soo xaaskiisu maadaama ay dhashay hooyadani marka khadra oo qasad ku socoto wiilka guriga wiilkeeda habeenkaas may joogin waxay joogtay gurigeeda soo ilmihiisa oo marka 12 jir ahay ayuu u dirwiiray ordo hooyaday iyagu waxa almuhiim wiilashii uu sayid dhalay hooyadan khadra ee u tahay ayeeyada waxay ku yiraahdeen ayeeyo hooyo waa dhashay waxayna dhashay gabar soo aabaan ugu yiri soo kaxay ayeeyadin soo baxna raac hooyadii ma sha Allah way soo raacday way u timiday gabadheedii uu ayeedo ahayd quraan ku akhriday dhigta quraan ugu akhriday ku adintay u duceysay xabadka iskaga heysatay la yar joogtay cabaar say ula joogtay habeennimadii sayid wuxuu ku yiri hooyo waa daalantay kolayta gala iska seexo hooyadu way iska seexatay hooyadu markaasi subaxnimada waxay balan la lahayd gabadheeda saamiya tamam ay balan la lahayd gabadheeda saamiya ay hooyadu maalinkaas ay balan la lahayd in ay soo gadaan ay suuqa isku raacaan hooyadu anigeed indhay caano jubno ukun iyo waxyaabahaas ay gadaa soo subaxnimadii markay saacadu around 7 am morning waxa u timid hooyadii saamiya xagee ugu timid guriga walaalkeeda sayid ay joogtay xalay hooyadu barid sax
وقتي مدحي كتير هو يصبح مانتينو إن سوق آذين على بعض سوق هذا يسائلينه هو يدي يسامية سوري قالين كاية دحي هو يدي يسامية وإسراعين سوقية آذين على بعض أي سوق هذين على بعض مركز سوق هذين على بعض مركز حلو دجية جوريجا سامية سامية على بعض دجية مركز جوريجا دي جلسي هو يدو مركز بجاج تقولي دحفر إذا عم توك قصي عربو دهان المصارد وده بجاجتي هو يدو مركز أي سي دحفر إذا سامي waxay ku tiri hooyo soo deg kaalay ee quraaco please kadib iska bax daarti meesha rabtid aad hooyo waxay ku tiri waa daahsanahay maxay hooyo waa ku baryaaye soo bax ee kaalay wax cun hooyo macaan please haye hooyadu way soo degtay gurigii saamiya ayay timid way soo degtay bajaajti waa la fasaxay marka sayid hooyadii wuxuu ku og yahay saamiya soo walaashi hooyadii almuhiim way degtay gurigii quraac inay ka quraacata ayay u gashay saacadu markay ahayd cishaa'igii ama salaadii cisho markii laga baxay hooyada halkeen ka ognahay guriga saamiya which time subaxdiiba barqadiiba sax okay halkaas ii jooga cishii salaadii cishada marka laga soo baxay ayaa wiilkiisa curad sayid ayuu ka yiri aabe maanta hooyo maysan soo hoyanin yani wuxuu ka wadaa ayeeyo maanta may soo hoyanin hooyada marka labada guriga u badan tahay waa guriga wiilkeeda sayid iyo guriga wiilki gabadheeda saamiya kuwan kale marka qaarkood magaalo kale degan yihiin qaarna waxay degan yihiin magaalada ka geeska ama ka cirifkay degan yihiin oo soo imanin iyo mi imanin maanta okay wuxuu wacay walaashi saamiya wuxuu ku yiri hooyo adigu may kula joogtaa markaas waxay ku tiri hooyo saaka markay quraacatayba way iga soo baxdo waxay soo aaday gurigaaga maxaa dhacay ma ku imaanin ma iima imaan iyo say kugu imaanin almuhiim labadii telefoonka markay kala jareen waxay sayid wuxuu wacay walaaladiisa kale oo gabdhihii iyo wiilashii haye axmed hello haye hooyo may hooyo marka familygii lixdii caruur ay dhashay hooyadu midkoodna lama joogto hooyada marka caado uma lahan meel ay ilmaheedu ogeyn inay tagto number 1 maadaama qof daa tahay number 2 ne guri aanan ahayn gurigeeda ama guriga ilmaheeda ma barido tamam ilmaheedii oo dhan marka waxay bilaabeen inay hooyadii baadi goobaan walaaladii la wada wacay maxay ilma adeeradii ilma abtiyaaladii family oo dhan way soo daba galeen masar marka waxyaabo ay ku fiicantaan ku sheegaya tabakaayo walbo yani tabakaayo waa waxa ugu liita maanta ya sax as a business marka la dhaho iska daa dukaamada waabeen horto beenii ma sheegani ma dhahayo masar laamiyadeedu CCTV bay leedahay okay compound-ka oo dadka maal qabeenada ay degan yihiin yes waa leeyihiin laakiin saa idin soo sheegay kun jeer horta masar soon insha Allah soon waa u socdaa masar waana u xiisay masar nolosheedu saa kun jeer idin sheegay waa laba dabaqad waa up iyo down middle class ma jirto qaarkood lifestyle-ka ay ku nool yihiin Mareykan iyo Ingiriis iyo Canada iyo qurba loogama noola VIP bay ku nool yihiin caruurahoodu waxay ka qalin jabiyaan Canadian International School UK International School USA International Schools bay ka qalin jabiyaan you can imagine okay ayadoo markaas ay tahay hooyadani marka waxay ku nool yihiin nolosha down-ka oo tay dhaqaale ahaan dadka danyarta kamid inay ku xisaabsan yihiin ayadoo saas ay tahay laamiyadu marka malahan CCTV okay laakiin waxay ku fiican tahay waxay tahay tabakaayo walba meel tima lagu sameeyo ama meel dukaan yar oo tabakaayo ah adi meel walba goob ganacsi waxay leedahay kaamirad gudaha iyo kaamirad banaanka
laba camera bay leeyihiin so taasi marka waxay ka caawisaa laamaha amniga iyo amniga wadankaba in haddii wax dhacaan si ilbiriqsi ama si fudud lagu soo qabto qofkii dambigaas geystay ma fahanteen sax laakiin hadda qurbahana joogno okay laamiyada waxay leeyihiin kamerado dawladda ku xiratay halka wadankaasna shacabku ayaga for the safety-gooda ay ugu xirtaan kameradaha so sayid iyo de walaaladii waxay go'aamiyeen qaarna daweeba soo safreen markiiba waxay go'aamiyeen in guriga saamiya iyo guriga sayid yani waa xaafad sax laakiin xaafad oo ma ahan de bajaaj iyo loo kala raacayo kala fogmaan waa xaafado lagu kala imaan karo so marka guriga saamiya ilaa guriga sayid hooyad inta u dhaxayso waxa ku wada yaalo dukaamo businesses maxay kuwaas waxay leeyihiin marka kamerado so gurigii saamiya kaga soo qabtay say kameradii mid u fiirinayeen hal kamerad baa waxay u noqotay muhiim kameradaasina waxay ku taalaa meel business oo warshada maaragtay wax shiida warshadaasi waxaa markaasi lahay wiil magaciisa la yiraahdo Cimaad baa lagu timo waxa lagu yiri Cimaad yani waa warshad family ahaan loo leeyahay laakiin waxa furaha hayo oo maamulo wiil la dhaho cimaadka waa nambarkiisa la siiyay sayid cimaad wuxuu yaa wacay cimaada la wacay cimaadka waa ninkan warshadan leh oo kameradiisa laga rabo in la fiiriyo hooyadooda laamigaas inay soo martay iyo inay mareen iyo in guri kamida guriyahan ee gashay inaysan gelin السلام عليكم وعليكم السلام سيدة ليدها كل إيمجريني سيد لكن وحن كوسو وعدي وكوسو رادية إن كيس بني آدم تري معه أو إنسانية كتشرته هو يدي أيام ويسنة هاي تمام إن هو يدي مركز حافظ عسى كسو بعد حافظ عنه وأسوس عتيه بلا يلا ده سو أنت أصور حيصور وصور فيرني وحقيقي من لا مجيننا كاميرا ذا أبو معركتي تيدا في أنا أما حافظ أنا وذا قبنا يسأني كاميرا ده طيب so please نعاوي عماد وحكيري فراها أنا هذا ما هي هذا moment ورشدة وحاهيو أبيه أوكي أبيهنا وبحي ورافي مجالك الوشرة دليلك إن أنا رادين أنا قد بباريال هذا نهاني فراها اسمه قانون كشرة حكيري هذا بميسين كرتان نمبر كأباها please أبيه بالا بحي هذا نه أبيه بالا وعي أبيه مركل وعي أبينا وحيري أنا كلية ومقنا هاي لكن فرها ورشدة وحكى لي سويلك عماد سيد وحيري عماد هذا لما كان يقصد تلفون كاج إسوسية هاي وهي بلنا وعاية سكري قدي ولا جري سيد دب دم تلفون لوجا من قبلنا سيد وحيري مركا فيلم باجري يوم بنادانا إلهي فيلم بونسي وحيري هو يدي حافظها أنا يكون رح مقان تاهي مانا كدقائق ماشان إلا ورشدان لفرو إلا هو years ما يقالت هلك كما ماشا عن فقريو كما دقائق لامي وفريستي ورشدي البابكي هورتي بو فريستي يلا وضا فريو المهديردي المهبريد أما هبر وذاقياشيسا دبرياشيسا أوكي هذه فاميلي نص ونص انتا أي وضا فريان واجي مركو بري around 8 morning مركين مرينو نسيد هذا وحو وعي عماد حكيري وصوص عطا هي المهم ورشدي بالي مدى والله فري سلا مركبة كاميرا دي اللي تجي كاميرا دي اللي تجي كليب كي CCTV ذو قبطي وكليب كأن يدين سودي جدون فيديو كان أتكداوني سراينا عن هذا الكي عن كورساريو كاميرا هي وحي قبطي ناق حافة داس دقن ورشدها سوجيت كده دقن أوكي أو لاميجا فريدة لاميجا أي فريدة جيس كيسة gurigeeda soo horjeedka gurigeeda naagtu fadhidaa marka gurigan ka hadlayna naagtan laamiga fadhidaa leh soo naagta gurigeeda waa kan ayadana intay fadhidaa oo laamiga fadhidaa kulli waa u jeedinta clipkaba
naagtani waxay sugaysaa sayid hooyadii oo khadra oo qisad ku socoto baa la sugayay naagtan laamiga fadhida magaceedu waxaa la yidhaahdaa kariima markay aragtay hooyo khadro oo kasoo socoto meel fog bay u gacan haatisay maaragtay qof markaa sheedow ka arko saas ku dhaho damiin am here iyo imo waaya almihii way u gacan haatisay hooyadiisay usoo socotay bay u timiday waad u jeedin videoga gurigii kariima gurigan ay hooyadan maamadan khadra ay galayso waa guriga kariima leedahay almuhim gurigii markii la wada galay cid kale kasoo baxday malahan ugu yaraan 1 saacadood baa guriga lagu dhex maqnaa 1 saac kadib waxaa soo baxday dunya waxaa dhashay qisadan ku baran doonaaye maamadan kariima la dhaho ayaa dhashay dunya soo baxday gabadhan marka dunya oo aad u jeedin way fuush weyn taagan maahane she's 17 years old waa 17 jir way soo baxday waxay doontay bajaajtii markay keentay xaafadoodii waa u jeedin videoga bajaajtii xaafadda la soo hor istaajiyay wax weyn oo duuduuban oo maro lagu duubay baa bajaajtii lasoo geliyay labadii naagood kariime iyo gabadheedii dunyaba waa kuwa bajaajta koray bajaajtii waa la koray oo la raacay sayid markuu intaas arkay walaaladiis qayb kamida iyo ilmaadeeradiibu ku yiri please meeshaan ha ka dhaqaaqina aniga right now waa baxaya waxaan aadayaa police stationka si aan u soo report gareeyo waxaan aragnay soo anaga dhan haddaan baxno is wada raacno waxaaba dhici karta inaan soo laabno videogii la tirtiro videogana waa the only daliil oo aan haysano so please inta iyo qofna ka dhaqaaqin asaga iyo axmed iyo maxamed saddexdii walaalood okay baa israaco wiil oo hooyadu dhashay gabdhaheedii iyo ilmihii ay dhaleen iyo ilmaadeeradii waxay kalna kaameradii kor taagayeen because waxay diideen in la tirtiro haddii la tirtiro mutada la ku gaarsiiya allah almuhim waa ka marka sayid imanayo iyo walaaladii stationka wuxuu ku yiri